Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Wuxuu yiri waxaan soo galay gudaha dalka Masar saacado kooban markii aan ku sugnaa gudaha dalka. Waxaan arkay nin biraha ka shaqeeya isagoo birta dabka kaga soo bixinaya gacantiisa, wuxuuna ku xogayay gacantiisa isagoon gubanayn. Markii hore waan la yaabanaa, balse gadaal ayaan waxaan iska dhahay ninkani waa awliyo. Kadibna waxaan bilaabay inaan u dhawaado, waana salaamay. Waxaana ku dhahay walaalkaygiiyow, Allihii karaamadan kuugu manaystay ayaan kuugu dhaarshay, ii duceey. Markaas ayuu ooyay, wuxuuna igu yiri walaalow sida aad imoodid ma ihi. Kolkaas ayaana ku dhahay waxaanad samaynayso ma samayn karo qof aan awliye ahayn. Ninkii biraha ka shaqaynayay wuxuu igu dhahay arrintani waxay ku timid sheeko aad u yaab badan oo aniga igu dhacday, haddii aad doonaysidna waan kaaga sheekaynayaa. Kadibna waxaan ku codsaday inuu iga sheekeeyo sheekada ay ku timid arrintan. Wuxuuna hadalkiisii ku bilaabay maalin maalmaha ka mid a waxaan dhex fadhiyay dukaankan, waxaana ahaa qof aad u firfircoon oo bulshaawi ah. Waxaa ii timiday haweeney aan hore u arag mid iyada ka qurxan, waxayna igu tiri walaalow ma haysaa waxaad Alle dartii u bixinayso? Anigana waxaan ku dhahay guriga ma ii raacaysaa, aan jawi soo wada qaadanee, waxaad rabto oo idilna waan ku siinayaa. Kadibna cabaar ayay i fiirisay wayna iga tagtay. In muddo ah markii ay maqnayd kadib ayay ii timid, waxayna igu dhahday dan iyo baahi uunbaa igu kaliftay inaan ku raaco ee ina keen. Dukaankii ayaa xiray, guriga ayaana u kaxaystay. Kii aan guriga galnayna waxay igu dhahday caruur baahan ayaa kasoo tagay iyo hadda wax yaraysi si aan ugu sii geeyo, waana kuu soo noqonayaa. Balan adag ayaana ka qaaday inay ii soo noqoto, waxaana siiyey xoogaha lacaga. Saacad kadib ayayna ii soo noqotay, guriga ayayna ii soo gashay. Albaabka ayaan xiray, waxayna igu dhahday maxaad u xiratay albaabka? Anna waxaan ku dhahay waxaan ka baqayaa inay dadkana arkaan. Waxayna igu dhahday walaal dadka waad ka cabsanaysaa ee Allihii ku abuuray maxaad uga cabsan weyday? Anna waxaan ku dhahay Alle waa dembi dhaafe naxariis badan. Kadibna xaggeeda ayaan aaday, markaasay ooysay, ilinteedana dabanadeeda ku hooreen. Waxaana ku dhahay maxaad la ooynaysaa oo aad la jaraynaysaa? Waxay igu dhahday waxaan la ooynayaa oo aan la jaraynayaa Alle cabsidiisa. Intaasna waxay ii raacisay walaalow haddii aad Alle dartii ii dhaafto waxaan kuugu duceynayaa inuusan Alle kuugu cadaabin dab ama naar adduun iyo aakhiro. Intaa markay ay igu tiri kadibna waxaan ku dhahay gabaryahay waxaan kuugu dhaafay Alle cabsidiisa. Markii ay iga tagtay kadibna waan hurday, waxaana ku riyooday gabar aad u qurux badan, madaxana ku wata taaj ka samaysan diamond iyo dahab aad u dhalaalaya. Waxayna igu tiri kheyr iyo xasanaad Allah kaa siiya abaalkii aad ii samaysay. Anigoo yaaban ayaan ku dhahay kumaa tahay? Waxayna iigu jawaabtay waxaan ahay hooyada caruurta lahayd ee kuu imaanaysay, Alle dartiina aad ku dhaaftay, Allana kuuguma gubayo dab adduun iyo aakhiraba. Waxaana ku dhahay isku kay sheeg nasabkeed ka soo jeedaa? Waxayna igu tiri waxaan ka soo jeedaa nasabka rasuulka. Waxaana markiina kasoo booday hurdada. Laga bilaabo maalintaas ilaa iyo maanta dab kumaanan guban, waxaana kaloo rajeynayaa inaanan aakhiro ku guban. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Haddii uu ku anfacay like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.